telefishinka dalka China ee loo yaqaano CCT ayaa diiday inuu tabiyo ciyaartii shalay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester City kadib markii laacibka kooxda Arsenal u dheelay ee Mesut Ozil uu weerar afka ku qaaday dawladda China. waxa uu sheegay Ozil in dawladda Shiinuhu ay cadaadis xooggan ku hayso muslimiinta tirada yar ee ku nool Shiinaha, muslimiintaas ee loo yaqaano Igor ama Turkistaanta bari. naadiga Arsenal oo ka tirsan yahay laacibkan ayaa diiday ama iska fogeysay baaqaasi uu jeediyay Ozil ama eedaynta uu jeediyay Ozil. laacibkan ayaa horay ugu soo dheelay kooxda Real Madrid ee dalka Spain, haatan ka tirsan kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska. Ozil ayaa u saftay xulka waddanka Jarmalka. waxa ay sheegtay joornaalka caalamiga ee loo yaqaan Global Times ee Shiinaha laga leeyahay in Ozil warbixinadiisu ay yihiin kuwa been ah oo aanay waxba ka jirin. waxa ay sheegtay Global Times in muslimiinta Igor si wanaagsan loola mucaamaloodo gudaha waddanka Shiinaha. Ozil ayaa warbixin uu ku soo qoray Twitterkiisa ku sheegay Turkistaanta bari kutubada Qur'aanka ayaa la gubayaa, masaajidda ayaa la xirayaa, dugsiyada ayaa la mamnuucayaa, culimaadudiinka ayaa la dilayaa, walaalaha ragga ahna waxaa si qasab ah loogu biirinayaa militariga Shiinaha. caalamka islaamku wuu ka aamusan yahay, muslimiintuna ma difaacayaan oo aanay muslimiintu ogeyn in dulmiga oo laga raali noqdaa ay tahay dulmi kale. laacana fara badan ayuu kala kulmay saxaafadda waddanka China, halka saxaafadda waddanka Ingiriiska ay buunbuuniyeen arrintaasi. shabakadda lagu magacaabo CCTV ayaa sheegtay in ciyaarta Tottenham iyo Wolverhampton ay dheeleen shalay ay tabinayso, iyadoo diiday inay tabiso ciyaartii Arsenal iyo Manchester City dhex martay.